xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Kalabeer ee ku yaala duleedka magaalada Beledweyne kaas oo u dhaxeeyay ciidamo kala taabacsan gudoomiyihii gobolka Hiiraan ee xilka qaadista lagu sameeyay iyo ciidamo ka tirsan booliska Hirshabeelle. Wasiirka xigeenka wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya Cabdinaasir Saciid Muuse ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka xun tahay shaqaqadii ka dhacday Beledweyne ee lagu dilay taliyihii qaybta booliska gobolka Hiiraan Maxamed Macu Xalane, isla markaana waxa uu tacsi u diray dhammaan eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay. Sidoo kalena waxa uu caafimaad degdega u rajaynaya dadkaasi halkaasi ku waxyeeloobay. Sidoo kale waxa uu sheegay Cabdinaasir Saciid Muuse in wasaaradda amniga gudaha ay guddi u saari doonto shaqaqadii ka dhacday Beledweyne kuwaas oo warbixin rasmi ah ka keeni doona sidii ay wax u dhaceen iyo dadkii ku lugta lahaa. Waxaana kamid ah hadaladii wasiirka xigeenka waa shacabka Soomaaliyeed in la wada warbixin kooban oo ku saabsan shaqaqadii ka dhacday duleedka magaalada Beledweyne. waxaan kaloo shacabka Soomaaliyeed la wadaagayaa geeridii ku timi Allah u naxariistay taliyihii qaybta booliska gobolka Hiiraan Maxamed Macu Xalane. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Allah u naxariisto eheladiisi iyo familkii iyo cid walba oo Soomaaliyeedna waxaan leenahay samir iimaan dhamaanteen Allah naga siiyo taliyihii naga geeriyooday. sidoo kale waxaan leenahay intii ku dhaawacantay shaqaqadaas Allah caafiyo. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ka xun tahay shaqaqada ka dhacday duleedka magaalada Beledweyne. wasaaradda amniga gudaha waxay magacaabaysaa guddi ka warbixiya oo ka keena warbixin waafi ah wixii ka dhacay halkaasi iyo shaqaqadii iyo ciddii markaasi arrintaas ku lug lahayd. waxaana rajaynayaa guddigaasi inuu ku howlgeli doono marka la magacaabo sida ugu dhaqsiyaha badan. isagoo sii hadlaya ayuu hay'adaha ammaanka Beledweyne uga digay inaysan ka qayb qaadan xaaladaha ka taagan gobolka Hiiraan iyo wax kasta oo dhibaato ku keeni kara shacabka Soomaaliyeed. wasaaradda amniga waxay faraysaa dhammaan hay'adaha amniga ciidamada amniga inaysan ka qayb qaadan wax khalkhal gelinaya amniga. sidoo kale inaysan ka qayb qaadan wax dhibaateynaya shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. si kastaba hadalka wasiirka xigeenka wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya Cabdinaasir Saciid Muuse ayaa ku soo aadaya kadib markii shalay dagaal ka dhacay deegaanka Kalabeer lagu dilay taliyihii qaybta booliska gobolka Hiiraan Maxamed Macu Xalane.